mar haddii taleefankaaga ilaad qabsatay ma geysay meel lagu hagaajiyo ama cid aadan garanayn oo ku hagaajisaa sida in lagaga furo passwordkaaga xirmay oo kale waa hubaal inaad dareentay cabsida ah ammaanka xogtaada sida sawirada muuqaalada fariimaha iyo dokumentiyada kugu jira maanta kadib markaad taleefankaaga kaga tegayso cid aadan garanayn una baahan inay adeegsadaan gudaha taleefankaaga isticmaal feature-ka lagu magacaabo u malaynaysaa inaad wax waliba ka hogtay taleefankaaga Android hagaag waxaan muuqaalkan ku arki doonaa qaar ka mid ah featureska Android kuwaasoo laga yaabo inaadan ogeyn ayna muhiim tahay inaad adeegsato usoo dhawaada muuqaalkeena maanta dhalinyaro feature koowaad waa auto blocker waxaanu feature-kani taleefankaaga ka ilaalinayaa khataraha ka imanaya dibadda sidaynu ka hortago in lagu soo dejiyo abis aan la garanayn oo kale haddii lagu soo diro waxyaabo malware ku jiraan waxaa sidoo kale feature-kani ka hortegayaa in softwares ama applications lagu soo dejiyo iyadoo la adeegsanaya USB waxaa jira USBs aad u malaynayso charger oo kale ama xadhi caadi ah balse markaad geliso taleefankaaga u soo dejin kara malwares kuwaasina oo ka hortegaya feature-kan waa mid advance ah ayna muhiim tahay inaad furato mararka qaar oo ku dhacday inaad qof u dhiibto mobilkaaga tusaale ahaan uu ku dhaho cid ayaan ka wacanaya kadibna uu iska galo meelo kale sida galeriga ama applications kale feature-kan screen binning waa mid ku caawinaya waxaanu qofkaad u dhiibto taleefankaaga ku xadidaya meeshaas aad ugu dhiibtay mana sii geli karo meelo kale tusaale ahaan waxaad ugu dhiibtay inuu cid ka wacdo waxaad u xidhaysaa pin kadibna applicationkaas kama bixi karo haddii uu sidoo ka baxna waxaa la weydiinaya passwordka shaashadda si uga baxdana waxaad ku taabanaysaa labadan button kadibna ka fur passwordka kugu xiran moogtahay sida taleefanada iOS-ka ama iPhone-ka ay u leeyihiin airdrop uu isna Android ku leeyahay feature-kan lagu magacaabo Wi-Fi Direct waxaanu feature-kani uu sahlaya inaad si dhaqso leh ugu kala dirsan karto xog sida document sawiraad iyo wixii la mid ah taleefanada kale ee Android sidoo adeegsatana soo gal settingska halkana ka sii dooro Wi-Fi Direct kadibna dooro magaca taleefan aad xogta isweydaarsaneysaan mar haddii taleefankaaga ilaad qabsatay ma geysay meel lagu hagaajiyo ama cid aadan garanayn oo ku hagaajisaa sida in lagaga furo passwordkaaga xirmay oo kale waa hubaal inaad dareentay cabsida ah ammaanka xogtaada sida sawirada muuqaalada fariimaha iyo dokumentiyada kugu jira maanta kadib markaad taleefankaaga kaga tegayso cid aadan garanayn una baahan inay adeegsadaan gudaha taleefankaaga isticmaal feature-ka lagu magacaabo maintenance mode si soo furato soo gal settingska sii dooro device care halkana ka dooro maintenance mode sida halkan kaaga muuqataa waxaa taleefankaaga si temporary ah u noqonaya factory reset oo kale ama sidii taleefan cusub oo kale ayuu noqonayaa sidoo kalena lagu soo dejin karo applications cusub markaa rabto inaad iska xidhana waxaa lagu weydiinayaa passwordkaagii kadibna wax waliba sidoodii ay kusoo noqonayaan si halkan kaaga muuqata xasuusnow inaad markasta backup adeegsato haddii tahay developer feature-kani waa ku muhiim feature-kan waxaa lagu magacaabaa developers option waxaana ka helaysaa tools ku samayn karto testing haddii aad program develop garanayso debugging iyo optimization toolska feature-kan ku dhex jirana waxaa ka mid ah USB debugging oo ku ogolaanaya in taleefankaaga iyo computerkaaga wada xidhiidhaan sida inaad ku ran garayso application develop garanayso kale una kusoo degsato custom promise stay awake oo screenka taleefankaaga ka ilaalinaya inuu damo markaad samaynayso testing ama debugging waqti dheer qaadan karo OEM unlocking ku ogolaanaya inaad furto bootloaderka waxaad noo adeegsan kartaa markaad soo degsanayso custom promise ama system fileska wax ka bedelayso iyo dhammaan toolska kale mid kasta wuxuu ku qabanaya shaqo gaar ah si aad soo furto developers option soo gal settingska dooro phone sina dooro software information waxaana loo jeer oo isku xiga taabataa build numberka si uga taxadirto in applicationska aad adeegsato ay ururiyaan xog badan isticmaal permission manager oo ku ogolaanaya in applicationska aad adeegsato siiso inta ugu yar ee permissions ay u baahan yihiin si u shaqeeyaan kana xidho inay adeegsadaan permissionska sensitive-ka ah sida locationka microphone-ka kamarada iyo kuwa lamidka waxaa sidoo kale adeegsataa option-kan ah inay permissionska aad siiso adeegsadaan keliya markaad soo kiciso ee aad adeegsanayso markaad ka baxdo waa in permissionkii laga qaada waana adeegsan muuqaalkeena maanta intaas ayuu geegyahay feature-kee aad u malaynaysa inuu yahay kan ugu fiican aragtada lagula wadaag qaybta commentiga sidoo kale haddii jiraan features aad leedahay waa muhiim in la adeegsaday iyagana noogu reeb qaybta commentiga hana ilaawin inaad muuqaalka la wadaagtid asxaabtaada kuna soo biir Kaytech Soomaali. Mahadsanid.